بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقا وحالي هذا ياسين عبد الله عبدي وحنا هينين سياسي ومقالة يوتيوبر دقن وان سلام يا halkan sidaan hore idinkaga ballan qaaday waxaan ku soo jeedin doonaa waxyaalo badan oo dadka waalidiinta faa'iido u leh oo aan ugu talagalay inaan taxana ka dhigo oo toddobaadkiiba mar iyo meelaha inaan maaragtay idin soo duubo idin soo diro hadii Ilaahay raali ka noqdo toddobaadkan waxaan gali doonaa waxbarashada qaybteedii labaad baan maanta ka hadli doonaa hadii Ilaahay idmo ubadkan waxay u baahan yihiin waxbarasho ku filan qaarkood yani maskaxdii iyo hamigii inta uu ku jira laakiin dhaqaaqi waa naga xoogaa waxaad moodaa inaan inta ka gaabino marka dhaqaaqi waxa kamid ah waxa la yiraahdo dhiirigelinta marka sidee baad ku dhiirigelin kartaa waalidka aabba iyo hooyo sidee baad ku dhiirigelin kartaa inankaagu ama inantaada bal inay waxbarashada ay ku fiicnaato waalid marka aad tahay waxaad isku dayaysaa in aad marba marka ka dambeeya aad tijaabisid waxa laga yaabaa inankaagu ama inantaadu inaanay qof ahaan aysan maaragtay ku habooneen ama aysan yani waxba ka qaadaynin oo laga yaabo fikirka u dhow ama midka intaad wax ka bedesho ama mid kale oo maaragtay inaad ku tijaabisid sidii aad u dhiirigelin lahayd dhiirigelinta waxa kamid ah marka hore in aad leedahay gurigaagu in uu leeyahay sharuudo afargees ah oo aanan marnaba aadan ka bixaynin waalid marka aad tahay hadii ay wax ku soo siyaadaan gurigaaga dhexdiisa yani wax walba oo aad hayso waalid ahaan wax walba oo hayso waa inaad iska dhigtaa waqtiga doonta ha qaadato laakiin waa inaad u soo jeesataa oo ilmahaagii markaasayti discipline-koodii iyo waxooda aad ka hadashaa inaad leedahay sharuudo ciyaalku laftooda ay og yihiin oo iyaguna aanay dareemaynin in lagu xadgudbay adiguna aadan dareemaynin inaad ku xadgudubtay waalid marka aad tahay yani luqadda Swedish-ka oo kaleeto yani ama aqoon ama ha aqoonin ciyaalku kama warqabaan ma oga inaad wax taqaanadii in kale adigu ba u sheegay waxaan ma aqaan dhahay maahe ma oga marka ciyaalku waa inay og yihiin waajibaadka saaran yani iskuulkan inuusan ahayn wax waalidiinta macnaha sida doogiska oo kaleeto ama xanaanada oo kaleeto meel yani ciyaalka lagu hayo inta ay waalidka shaqo kale ku maqan yihiin ama ay waxbarasho ku maqan yihiin inaanay ahayn runtii waan arkay ciyaal dhahaya halkan iskuulka maxaad u joogtaa markaan weydiiyo kale cajaladii hore aan kugu sheegay macallin baan ahay markaan weydiiyo waxay leeyihiin waalidka baa shaqeynaya marka annaguna halkan baan ku qasabanahay marka inaan wax baranno waa iska fiican tahay yani laakiin su'aasha ugu horeysa waxay ku leeyihiin waalidkii baa shaqo jira dhamaantood ma aha laakiin waxaan ku sheegayaa tusaale ahaan mid iyo laba waxaa jirta hooyo Soomaaliyeed oo dalka Sweden degan qaas ahaan magaaladan aan hadda deganahay anigu aan deganahay Göteborg degan hooyadaas nasiib daro wadanka marka ay imanaysay aqoon ma lahayn ma garanaysaa waxa xataa sida adiga ugu maqaalada ah waxna ma qoraynin waxna ma akhrinaynin markay imanaysay wadanka ma garatay ilmaheedii waa dhowr ma sha Allah Ilaahay ha u daayo dhamaantood hadda waa dhamaantood waxay ka baxeen jaamacad maanta iyaduna wadanka markay imanaysay yani qof aan waxba qorin waxna akhrin aan alphabet baa la dhahaa bay ahayd waxay oran jirtay cuntada marka ay sameynayso oo kaleeto war kor u qaad aan ku maqlay kor u qaad macnaha kor u qaad markaad akhrinaysid aan ku maqlay dhagahayga inaan maqlaan rabaa cuntaan karinaya markaas waxay dhihi jireen hooyo adii Swedish kama taqaan maxaad ku falaysaa markaas waxay leedahay see ku ogaatiin aan aqoonin waa ma sha Allah hooyo karti leh bay ahayd oo iyadii aabaha laftiisa waan arkay anigu khayr Allah siiyo labadooduba aad bay ugu soo dadaaleen yani waa maanta reer ka farxad badan waa yar yahay waa dhif iyo naadir ma garanaysaa marka waa tusaale wanaagsan oo lagu dayo
dhamaantayadu war xataa geeljiraheen wuxuu ku leeyahay maanta waxaan jeclahay inaan wax barto dhalinyaradeenna cusub oo wadanka timid iyagu laftooda waxay wadankii Soomaaliya markay ka soo tagayeen waxay lahaayeen waxaan jecelnahay inaan aadno wadamada Yurub halkaas waxaan ka helaynaa waxbarasho macnaha hadalka ugu horeeya waa waxbarasho laakiin intooda badan markay wadanka yimaadaan sida tire banjaray ama lugta baabuurka oo banjartay isku dhaxdhacaan waxaad u moodaa in ay ka shaqeynayaan waxyaalahan social media oo ay ka mid tahay Snapchat-ka ay ka mid tahay muxuu ahaa Instagram-ka Facebook oo kaleeto iyo YouTube-ka oo filmada iyo heesaha laga daawado yani waxyaalo uu qosol hadhow marka yani qofka uu soo kaco aroortii ilaa inta uu ka seexanayo habeenkii haddaad xisaabtanto oo tiraado war saaki aroortii baan soo kacay maxaa ii qabsamay way yar tahay dad dhalinyarada ah baan ka hadlayaa way yar tahay mid ku dhahay waxaas baa ii qabsamay ilmuhu marka wuxuu badbaadi dareemi karaa waxbarashada iyo gurigii baan kusoo noqonayaa mar kale ilmuhu wuxuu dareemi karaa marka uu og yahay waajibaadka looga baahan yahay soo marka aniga xaquuq baan leeyahay dawladuna waajibaad baa iga saaran aniga iga saaran oo waajibaadkeen ka soo ilmaha iyo gurigana waa dawlad oo kaleeto anigu guriga aan ku soo koray aabahay wuxuu dhihi jiray anigu waxaan ahay wasiirka arrimaha dibadda hooyadan wuxuu dhihi jiray waxay tahay waa wasiirka arrimaha gudaha ma garanaysaa wasiirka arrimaha gudaha soo marka reer walbaba sida ay rabaan ha u sameysteen laakiin muhiimka waxa weeye in hal dhinac lagu wada socdo inta aan muxuu ahaa kusii dheeraan arrimaha kale dib haddaan ugu soo noqdo yani ubadka kalsooni bay helayaan marka ay og yihiin waxa looga baahan yahay tusaale ahaan waxaa loo sameyn karaa ilmuhu marka ay aad aragto macnaha inay dadaalayaan ama aanayba dadaalaynin waxaad dhihi kartaa waxaan kuu sameynayaa haddaad shahaadadaasay dugsiga aad intaa ka keento يعني ilmaha xitaa waxyaalaha loo soo iibinayo haday noqoto Xbox haday noqoto telefoon uu ku hadlo haday noqoto muxuu ahaa ciyaaro kale iyo game kale ama safar baxata la geynayo waa in ilmuhu uu shaqeeyaa exactly sida adiga waalidka aad u shaqeynaysid yani shaqada hadaadan aadin mushaar miyo ku soo dhacaya waa may ilmuhuna waa sidoo kale hadaanay iskuulka aadin oo aanay natiijo weyn aysan ka keenin iyaguna de malaha wax waa in laga joojiyaa alaabta ilmuhu ay haystaan oo ay kamid tahay telefoonka oo ay kamid tahay muxuu ahaa alaabaha lagu ciyaaray geemamka iyo waxa yani hadii uu iskuulka ka saaqido ama dugsiga yani ka saaqido oo aad aragto inuu kii qalqaal yahay de awalba waxaan adiga iibiyay waalidka adiga iibiyay ka qaad markay qofkan yani xorriyadan iyo lahaashahan ma istaahilo wuxuu ku istaahilaa marka uu wax barto ila geeli ari kala ma raacayo ma garanaysaa soo marka waa inaad ku abaabisaa ballanqaad u samee intaas markaad ka soo baxday abaalmarintaas baad helaysaa anaa ku sameeyay caruurtayda waana ku abaalmariyay waliba wixii aan ka ballanqaaday ma ahe wax ka badan baan siiyay farxad awgeed because markaad aragtay ilmihii oo shahaado de heer sare ama la imanayo يعني والد باتهاي معناها واتكو فرحيسا والدكو وإنو عرورت ويديا إن إليهين عشرة ذودي يعني ما دعي كرتو عنق سكول كسو النقضي أو أنا 10 لهين هذا ندين شيء يا والدينتي يعني حتى هدانا الأورنين وحن كسو شقي هدانا الأورنين وكير هذا لك سما هيستو وحد كو اتحامي كرتا كوي وكيري وانسو أخري بدكو اتحامي كرتا وحلل مراجعات بان سمينينا يعني قصب وي مالين والبا ويرانا هل ساعة مالين والبا إن عيالكا لا فريستو وحبرتو ومهم وي قرشها كاليتو كل حاجة هدي إلهي إدمو وحان ugu talagalay inaan ka hadlo in yar oo kooban caruurta yani caruurtan la iska qaadanayo caruurtan la qaadanayo maxaa keena
idinkuna waxaan idinka codsanayaa marka aan cajalkan aan ku faafiyo Facebook insha Allah inaad la wadaagtaan saaxiibadiina inaad share gareysaan macnaha la wadaagtaan saaxiibadiina inaad comment ka sameysaan inaad fikradihiina isoo qortaan oo ila qaybsataan sababtoo ah macnaha way isii dhiirigelinaysaa in aan cajalado fara badan oo kuwan iyo kuwan ka tayo wanaagsan xitaa in aan idin soo diyaariyo oo aan idin keeno anigu urur ma lihi xisbi lama socdo dad kale igama dambeeyaan wax walba oo aan sameynayo waxaan u sameynayaa jacayl aan idin qabo Soomaali ahaan wax kale iga soo galaya haba yaraatee ma jirto siyaasi baan ahay laakiin lacag kuma qaato ama mushahar kuma qaato in aan filinkan idin soo duubo ama idinka aan idin wargeliyaan ka wada marka aad baad u mahadsantihiin dhagihiina aad siiseen waan ka xumahay cajalada ila dheeraatay sidaan sheegayba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isaragto dambe oo xiiso leh mar kale tan idinku celinaya magacayga waxa la yiraahdaa Yaasiin Cabdullaahi Cabdi waxaan ahay nin magaalada Göteborg ee dalka Sweden degan kaamirada waxa iga duubay saaxiibkay Maxamed Cawad aad baan uga mahad celinayaa Maxamed Cawad waa nin kamid ah saxaafadda Soomaalida nimanka ugu heerka sareeya ma sha Allah aad baan uga mahad celinaynaa isaguna fi sabilillah buu ku shaqeynayaa waad aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum